ballan kii aan ummadda u qaadnay baanu fulin waxaanu ku bedelayna way jiraysaa guddiga nabadgelyadu waxa gudoomiye u noqonaya bara saabka xubnuhu waa sidoodii laakiin iyagu xukumi maayaan garsoorka geenayaan cid ay doonaan inay xukumaan haddii cidi khalkhal geliso bulshada reer Togdheer booliisku cid kastoo la eedeeyo wuxuu xaq u leeyahay inuu qabto garsoor madax bannaan baa la geenaya immediately waa la xukumaya xil ka baaqanaya iyo cid ku kibri karta ammaanka iyo nabadgelyada ma jiri doonaan waxaanu qabanay hantidii ummadda ee kala laalaaday ee midba meel lagu qaadayay baanu midayna cashuurtii ummaddaanu midayna dhaqaali baanu isu keen one pocket baanu ku xirayn wasaaraddan anigu madaxda ka ahay lacag bay qaadi jirtay waxay maanta ku jirtaa lacagtii ay qaadi jirtay wasaaradda maaliyadda qaada ku wareejiyay dekada berberi lacag bay qaadi jirtay waxna waa la qaybiyey waxna servicekeeda loo reebay waxna hantii dawladda dhaxal laga mid yahay cashuurta xoolaha noo laga qaado har karansiga iyo kuwa shidaalada dakhliga dawladda kuma soo xiran jiray maanta wasaaradda maaliyadda wada xorad hanti guriga madaxweynaha gaar loogu geeyo iyadoo shandad la sido ama gudoodi loogu qariyo ma jirto walaalayaal waxa weeye ballankan ummadda u qaadnay ayaanu rabnay miyaanay wax qabad ahayn miyaanay ballan oofin ahayn waxaanu samaynay si waxaanu dhinnay dhaqaalaha cashuurta ariga laga qaadaanu wiigan dhinnay si sayladeenna iyo malkadeenna ula tartami karto malkooyinka kale malkadeenna qiimaha badan ee berberi saay u noqon mid looga guuro oo challengeska ariga dhoofaya ay u xijin karta baanu xoolii lacagtii dhinnay tii cashuurtii dawladdana qayb baanu dhignay tii shirkadda aljaabiri qaadi jirtayna qayb baanu dhignay waxay ka mid tahay waxqabadka saddexdaa bilood aanu doonayn inaanu ku tallawsano waxaanu walaalayaal qabanay waxaanu nimi qaran shaqaalihiisii dulmanaa ee 54 ka u sarreeya bunt A iyo B iyo C waxay qaataan $54 $46 iyo wax la mid ah waxa aad arkaysaan ayaa iyaga oo dulman askariga ciidanka qaranka ee nabadgelyada ummadan ilaaliyay iyo ka booliiska gaaf wareegaya ayaa waxa qaata qarankan oo dhan bay ku tahay ceeb ay ku tahay iyo xaq dhowr xumo ay ku tahay in dadku xilka u diranay ilaa kii dhaqaalaha qaadaya 10ka ilaa kii qaadaya malaayiinka dollar baa leeyahay intaasaad leedahay taa macnaheedu waxa weeye wuxuu dooro inuu sameyn karo oo xali karo weey waa fasax rasmi ah waxaanu samaynay maanu kordhin karayn inaanu mushaharooyin dadka u kordhino meel maran baan u nimi xaslad maran baan u nimi oo lagu leeyahay malaayiin lagu leeyahay waxa aanu samaynay afartii bilooda ka maqnaa mushaharooyinkooda silcale ayaanu soo celino maanta aanu siinay u malayn maayo bisha maanta September baanu challenge gareynaa lacag kale laguma leh walaalayaal waa wax qabad weey waa wax qabad waanu dareensanahay in marfashiyada magaalada Hargeysa aadka looga qayilo aadna looga dacaadeeyo oo bakhaylnimo iyo haddii ay bidmay jeebkaan uu gacanta gelin aad wax nalooga hadalayo waan dareensanahay waxaan leeyahay dano dad gaari ay dheryahoodu ay u karsan yihiin xukuumadda iyada cusub haddaan idin sheegayaa waxaanu ka door bidaynaa inaanu wax hal mashruuc oo dadku wada leeyahay oo ay wada dugsato inaanu qabano ayaanu ka door bidaynaa in gaar ah aanu qaqayno haddayna dacaadeynayaan iyo haddayna la culoobayaan waxa walaalayaal waxyaalaha runtii waxa ka mid ah arrimaha iyaguna qabsoomi doona muddadan mashaariic waaweyn oo lagu guuldareysay la dhamaystiro waxa ka mid ah bridge-kii intaasoo sanado socday Hargeysa haddaa idinku kan dhisateen bridge-kii Hargeysa dhammaan kari waa sidaa darteed xukuumaddan cusub waxa ay ka go'an inay dhamaystirto bridge-ka waqti dhow waxa aanu ku dhamaystiri lahay aanu ku talagalay 100 maalmood inaanu ku dhamaystiro waana rajaynaynaa challenge-keedu waanu wadnaa laakiin waxa obstacle nagu yimi xaggii daad soconaya oo baalihii la aasi lahaa dhibaato ku haya marka waa ku rajo weynahay haddii aan daadkaasi aanay soo xoogaysan waa dhamaystirayna waxa ka mid ah wadada dila iyo Boorama isku xidha 4 kilomitir bay xukuumaddu samaynaysaa muwaadiniinta reer Boorama anigoo ku amaanaya tacabka gashankiisa galeeno iyaguna inta leeg bay soo sameeyeen xagga annaguna xaggaan ka bilaabayna dila waxa ka mid ah anigu wasaaradda imika jooga madaarkan burco waynaga maanta furayna
kii Boorama 19 bishaan furay 8 sano lagama soo digin ka Boorama 8 sano lagama soo digin madaarka Berbera waxaanu ka dhisaynaa terminaal weyn oo dadku ka dhoofo terminaalka laga dhoofiyo ka laga soo dega waa isku mid maanta wax qabadka xukuumadda waxa kamid ah 100 cisho terminaal cusub terminaal qiimo badan oo weyn oo laga dhoofaanu ka dhisaynaa kii horena waxaanu ka wada dhigaynaa ka laga soo dego waxa kamid ah Hargeysa oo kale terminaalkeeda weyn laga dhoofo iyadana dib u habayn iyo ballaarin baanu ku sameeynaa wiiga soo socda ayaa labada mashruuc ay dhamaanayaan waxyaalaha iyo waxyaalo wasaarad walibana wax qabad bay sameynaysaa taan anigu kooyga ka waramaya lamida marka waxa weeyaan duruufo badan bay nagu xeeran roomana maalin laguma dhisin waxa muhiimku yahay in yool iyo abaarina ay jirto go'aan iyo ku dhacna u jiro ayaa muhiim ah intaas un baa ugu muhiimsan walaalayaal waada burca waxay isticmaashaa lacag aad u baabaday oo ceeb ku ah qarankan qaran weyn uu leeyahay astaan midaysan lacagtu waa astaamaha midaysan ee qaran wada leeyahay xisbiga kulmiye hadduu xukuumadda haya 8 sano burca lacagta ma haysateen walaalayaal haddaan idin sheegaya ma ay haysateen maanta lacagta bari hore bedeli lahayd macnaheedu maaha madaxweynaha qaranka burca ka soo jeeda sida loo yeelaya waa dalka si siman oo cadaalad ah u maamulayna waanu isku wadaynaa dalka ummadda waanu isku wadaynaa lacagta iyada miisaaniyadda sanadka soo socda meel maran baanu dhaxalay bilahan bedeli kari mayno laakiin miisaaniyadda abril ka bilaabmaysa first abril miisaaniyadda ka bilaabmaysa burca lacagta waanu ka bedelayna ku abshira ma aha lacagto kaliya waxyaalahaanu qabanayno waxa kamid ah bari oo dhan in lagu fidiyo lacag sanaag waxa laga isticmaalaa lacag kale iyadana boosaaso leeday waxa kale oo kamid ah in maamulka iyo dawladnimada la fidiyo waxa kamid ah sool iyo sanaag bari in la dhaabadeeyo gogol nabadeed baa madaxweynuhu u fidiyay maamulkeeda in la tayeeyo in awood adag lagu taago ammaanka dalkani iyo magaaladan aynu joogna haddii aan xuduudihiisa la adkayn iyo daafihiisa iyo dacaladiisa ma adkaan doono marka walaalayaal waxaan idin leeyahay dulqaata rajadoo dhanna yaan la dhigin marka bilaa ugu horeeya yaan la soo dhigin wax badan baynu qabanaynaa iskaashina shacbiga waanu ka sugaynaa dhinaca kale waxyaalaha ay xukuumaddani durba ku dhaqaaqday waxa kamid ah siyaasaddeedii dibadda wax badan baa iska bedelay waa arkaysay 14 bishan waxaanu ku qabanay caasimadda Soomaaliland shirkii deeq-bixiyaasha caalamka waa markii ugu horeysay ee Soomaaliland ay yimaadaan warbaahinta caalamka intaa la eg iyo deeq-bixiyaashii dalalka qaaraanka toos u bixiya hay'adaha UN ku way joogaan international NGOs ku way joogaan waxayna la macaamilayaan marxaladda si aynu uga soo gudubnay doorashadii muddakarnimadii aynu muujinay wax qabsiga ummaddeena iyo shacbihaan aynu muujinay isku duubnideenu tijaabo caalamiya bay noqotay oo loo arkay mudan in la taageero baa loo arkay taasi waxay dhiiri gelisay in lagu soo dhiirado inay dawladdu toos inoola macaamilaan waa arkaysan dawladda Mareykanku inay lahayd Somaliland toos baanu la macaamilaynaa